Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. هو خالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta halkaan waxaan ku qaadanaynaa cashir aad u fudud. cashirkaas oo ah sidee kombiyuutarkaaga ugu xiri kartaa dhammaan aflaanta xunun ama aflaanta anshax darada ah. dabcan website-ka aad ka heli karta waa www.wacabaraha.com. baraha waa cabdikariim xiri cabdulle cabdikariin habi. cashirkuna waa sidaan hore idinku sheegay sidee kombiyuutarkaaga ugu xiri kartaa dhammaan aflaanta xun. waad ka balogaraynaysaa qaabkaas aynu baranaynaa maanta. webkana waa wacabaraha.com. dabcan hore ayaan idinku sheegay. waaya cashirkeena ayaan gudagalaynaa. si fudud ayaan idinku tusi doonaa, si adagna waa idinku tusi doonaa. marka ugu horey sida fudud ayaan idiin horumarinayaa insha allahu tacaala. waayahay sida fudud my network places meesha ay ku qoran tahay ayaad laba mar jag ku siinaysaa ama right click. kombiyuutarkaaga qaabkan ayuu ku keeni doonaa. meeshaan view network connections ayay ku qoran, view network connections. meeshaan ayaad dooranaysaa. waxaa kuu soo baxaya networka local area network. halkan waxaa ku qoran local area network connection ama local area network uu soo saaraa, local area connection uu soo saaraa. okay, local area connection kan ayaan gelaynaa. waxaan furaynaa right click ayaan leenahay. right click iyo left click ayay kala yihiin. mouseka ayaan ka hadlaynaa. mouseka gacanka ama hagaha sida u taqaano, hagaha aad isticmaalayso waxaa la dhahaa uu leeyahay meel right click ah iyo meel left click ah, midig iyo bidix. marka waxaad isticmaalaysaa right click. buttonka yariiska ayaa imaanayo sida ujeedaan waxa disable stats waxaan ayaa socota maanta. meeshaan waxaa socota properties. meeshaan waxaa ku qoran properties. check ayaa ku siinaysaa hal mar. kadib waxa aad dooranaysaa network protocolka ayuu ilaalinayaa insha allah. ip address-kan ayaan hadda geli doonaa insha allah. ip address xiraayo ayaan gelin doonaa. ip address xiraayo ayaan gelin doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo. ip addresska marka properties ayaa kasii doona. adigoo calaamada saara waaye, calaamadan xeelaadka iyada ay ku saarta. kan haddii uu saaran yahay dhahdo makuu soo baxay active ma naqanayo. soo wajeed kan keliya active ku noqday, kuwan kale active kuma naqanayo. marka kan ugu hooseeya ay ku qoran tahay internet protocol ayaa dooranaysaa. kadib waxa aad dooranaysaa properties markii aad joogto. sidii hore bal aan ku celino kombiyuutarka aniga iga xirnaa. dabcan saan ayuu ku keeni karaa hadduusan kaaga xirnayn. maxaa samaynaysaa marka kan sidiisa ayaad ku dhaafaysaa kor mujeedaa. laakiin kan use the following dns ka soo socda isticmaal. meeshaan use ku qoranta ayaad calaamadan oo kale saaraysaa. okay, meeshaan inaa wax ku qorto ayuu ku ogolaada. laakiin bilaawga hore bal aan fiirino siduu ahaa. wax ma qori karin, laakiin calaamadan ayaan riixay, wax baan qori karaa. okay, xarfaha aan qoraya wax weeyaan 2 eber 8. asiga ayaa keligiis boodaya. dhibicdaas marka 3 xaraf ayaa loogu talagalay meeshaas. 2 7 haddii aan dhaho ma boodaayo. meeshaas 2 7 bis baa loogu talagalay. inta ayaa usii soconaysaa. waxaa ku qoraysaa 2 ama 3 2 2. halkan waxaa ku qoraysaa 1 2 3 ama 1 2 3. meeshaan hoos ayaad imaanaysaa. isla tiradii kor ayaad soo gelaysaa ayaa gelinaysaa. inta isla tirada ay gelinaysaa, laakiin halkan ayaad ku kala dugaysaa. halkan waxaa gelinaysaa 2 2 1. meeshii uu korka ahaa 2 2 2 waa 1 2 3. sidii asigoo ku ayaad isticmaalaysaa. okay, close ayaa iska leedahay. kan dhanna waa iska xiraysaa. marka maxaa rabtaa wixii aad samaysay natiijadooda in aad hubiso. meeshaan google-ka ayaad furaysaa. waxaad dooran doontaa open meesha ay ku qoran tahay. kadib waxaad gelaysaa google-ka. markii aan furno sidaan u maleynaya filimaanta anshax darada meelahan lagu soo daraa ama sidaan u naqaana magacyadooda.
okay youtube waa kan for example kanoo kale ayaanu aadaynaa waxaa kor ka aragtaa meeshaan blog domain magacaan ciwaankan waa la block gareeyey magacani waa la block gareeyey sidaa darteed waxaa halkaa kaaga xiran ciwaankii ama filimaanta xumaa website walba oo la qoro waa uu kaa xiran yahay website waliba oo aad qorto waa uu kaa xiran yahay cashirka halkaas ayuu noogu egyahay waxaanu hadda geli doonaa hadduu ilaahay karaan noqo sida adkayd waddo dheer sidee loo soo maraa iyo waddo fudud sidee loo soo maraa ayay ahayd cashirkeena wuxuu ahaa sidee waddo adag loo soo maraa iyo sidee waddo fudud loo soo maraa meeshaan waxaa ku qoran sorry yacni waan ku xunnahay magacaan maba geli kartidba magacaani ma geli kartid waa la balowgareeyay dabcan wax noocan inuu ahaayaan jeclahay blog network dhankeeda ayaa laga balowgareeyay marka adiga ayaa ka xiri karo computerkaaga okay gurigaaga dhammaan iyo goobahaaga ganacsi insha Allah waayahay qaabkan waan ka bixinaa sidee markaan u galeynaa ama aan waddo dheer u mareynaa waddo dheer marka aan mareyso isla waddadii ayaa mareysaa laakiin wax yar meel dheer ayaa soconaysaa start ayay ku socotaa meeshaan start ay ku qoran tahay bilaaw kadib waxaad galaysaa meesha ay ku qoran tahay ayaad galaysaa settings markii aad gasho waxa aad dooranaysaa meesha ay ku qoran tahay control panel kadib waxa aad dooranaysaa network connections waxaad dooranaysaa network connections right click open ama double click okay isla waddada ay noo keenay soo ma jeedin local area connections kadib right click properties horay soo aragtay internet protocol properties ay sii aadaysaa waa kan wixii aan gelina waa kuwana haddii aan ka bixin wixii sidii shaqeyn marka okay ayaa leedahay kanna okay ayaa leedahay insha Allah cashiro kale aad u muhiim ayaa noo soo socdo waad ku mahadsantihiin inaad ka faa'iideysteen ayaan jeclahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.